haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan, waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allaha u naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan. aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mida mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay, aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixihiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan. midda koowaadi waa tii ahayd bawdya rageed midba maalin qaawan, oo ah maahmaahayna baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn, barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn. maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo, haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono. sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado, dhulkana uu ka qaado. hase ahaatee, inkastoo ay taasi jirto, aadna mooddo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaanno hore ka faraxashay, haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan. maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen, iyagoo ugu dardaar warinaya calooshilla ciyaarka sareedada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarine ku tunta, haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya amaba goomoodhi ku garamara. allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gebyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay. tudcyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay: cirkaan di'in, abaar daaliyaa dunida oo qiiqday, dayax ururta daariga ka maray, dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibbiriyaaye, dayraanka curashaa ku xigi daacigii sabane, marunbuu darooraa intuu daadka soo rogo baldayaay duraabtaa horuu daafta mariyaaye. nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye, inkastuu duqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin, deeqii alluu dooc ka sugayaaye. gabyaagii isna murtidhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen, isku gadana ahaayeen, lana odhan jiray qamaan bulxan, waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa: adduun waa har labadiisa gelin, waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay, yaa ninuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaay. haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdya rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya, ayuu samatar baxnaanna jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa, maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo, ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin. dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar wariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mida ay iyaguna ku dambayn doonaan. sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan, iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen. maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah
oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa: bowdada raggaba maalin bay dani bannaysaaye nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga badhiinayne idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday shuushku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. mahmaahda labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jebiyaa, oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo, qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. gabayadiisa midkood xilligii uu Samatar maahmaahda u adeegsanayay waxaa Buuhoodle iyo agagaarkiisa ka aloosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay, hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. waxay ahayd horaantii sannadihii 60nadii qarnigii aynu soo dhaafnay. labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yiqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. Samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tix uu dhexdhexaad isaga dhigaayo, ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada. aar baa bushiisa laga argagaxo oo miciyaha isku lisaaya, libaax laga wada giigay oo Buuhoodle oo idin looga cararay. aar isaga Samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. maanseyahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo maahmaahdii lafa maroodi iyagaa la isku jebiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi: bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo, nabarkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaaye, ogow balaba beladii xigtaah la isku beegaaye. waxaa iyaduna jirta mahmaah si weyn uga dhex muuqata maansada Soomaalida, gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan. waa mahmaahdii ahayd gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa. taasna waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay Soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer Burco ee la oran jiray Cabdilaahi Muuse uu tiriyey. isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaya ayuu Cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu maahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay. wuxuu yidhi: istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaan ee tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe, hadday midigtu keli taagan tahay dahar ma goyseen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.